وعن داوديال كسو دوادا قبناها حقيقة وررك عالم كيوري بالصوماليا وإمسا تيرادا أسكرتا مركن إيران أي دياريسي ما آمينيسا هل دبيع 8 بليون أو أسكر أيا مركن إيران لسوهل قليي وعن سيدو كلا إيجي دونا 7.94 gantaal oo waliba kuwa ugu sareeya ayaa mandaqada hoosteeda Iran markan shaaci ugu qaaday Netanyahu marka kani wuxuu wajahayaa culayskii ugu badnaa waxaan sidoo kale eegi doonaa waa maxay sargaalka sare tirada intaas la eg oo waliba iftiinka uu ka qaaday in 1.235 bilyan oo shuhada ay u diyaarsan yihiin markan in ay weerar ay qaadi karaan tirada askarta meydadka ah ee Trump oo markaas u gudbiyay gobolka aan laga soo laabanaynin imise ayay gaaraysaa waxaan sidoo kale eegi doonaa muxuu ka yiri ama muxuu ka dhaxlay Trump dagaalka waqtigan bariga dhexe ka socda xaalkase ma u muuqda mid markan saameyn culus keeni karo Netanyahu isagana waxaa la warinayaa inuu gebi ahaanba markan dhulka uu hoostiisa ugu jiro qaybta seen rabaa in halkan kugu soo koobo soo dhawaada markuu ugu horeyso kuna soo dhawaada Shariif Show like saaxiib meel dheer in gaarsanaysa noo like gareema sanadin aan ku bilaabay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa kumanaan askar ah midadkooda markaasi u galbinaya gobolka aan laga soo noqon ee geerida kadib markii ay helaleen gantaalada ay rideen ciidamada kacaanka ah ee Iran ciidamada Mareykanka ama aan dhahay ciidamada meydadka markan Trump uu sagootinaya ayaan markaasi laga daadgureynaya meydadkooda furimaha dagaalka ee bariga dhexe waxaana la sheegay in ay ahaayeen askartii ku dhimatay dagaalka ka socda gobolka halka dagaalka Trump uu markaasi uu ku biloobay kaasi oo khasaare lama filaan ah ka soo gaarsiiyay Mareykanka iyo waliba xulfadiisa Trump hadii hore ugu faani jiray weerarada ee markaasi hore markaasi ugu bordaqan jiray markan waxa haysata borordiiqtiyada ugu xumeyd iyadoona hadda xaaladdu ay markaasi si weyn isku bedeshay wararka soo baxay ayaana tilmaamaya in kumanaan askari ay ku dhinteen halka markaasi boqolaal kale oo diyaaradood kuwa qaaliga ah ay markaasi ku burbureen taangiyo ayaana markaasi la gubay sidoo kale saldhigyo muhiim u ahaa ama saldhigyo hore oo markaasi la mooday inay ku adkaysi badan yihiin ayaa gebi ahaanba dhulka ay dhigtay Iran taasi oo markan lagu tilmaamayo in talaabooyinka ay qaadayeen yihiin kuwa saameyn mar kale ku yeelan karo hadaba Trump hadii hore u faani jiray marka kan xaaladda way ku cuslaatay Netanyahu ninkii ha isagana dhulka hoostiisa ayuu ku jiraa oo waliba cabsi xoogan ayaa soo food saartay kadib xilli uu gubay kaalin shidaal oo ku lahayd Tehran magaaladeeda gudaheeda halkaas uu gantaal uu ku dhuftay waxaan sidoo kale eegi doonaa sargaal sare oo magaciisa lagu soo koobay kaliya oo waliba Nasirdoon ah Sheekhada General Karg la yiraahdo ayaa wuxuu yiri 95% ciidamada Iran waa saynisyahano gantaalada ay dhisayaan annaga ayaa markaasi raadinayna bari waxaana noo diyaarsan 100,000 oo askari oo shahiid oo safka ugu jira halka waxa warbixin oo markaasi sirdoon uu ku bixiyay taliya sare oo Iran ah taasi oo markaasi ka dhigaydo falanqayaasha Bertkolka in ay markaasi ogaadaan ama ay ogolaadaan in ay miisaaniyadoodu ay ka bixiyaan in ka badan 88.6 bilyan oo dollarka Mareykanka taasi oo iibsanaysa bandhigyada PowerPoints la yiraahdo halka Iran ay markaasi maalgelinayso dadka waliba wata PhD iyo waliba warshadaha dhulka hoostooda kuwa oo lagu tilmaamay in saynisyahano iyo injineero gantaalo bombskes ka shaqeeya ay gebi ahaanba dhigaan hadaba mandabaqadaha ugu waaweyn iyo waliba shuhaadada markan ay Iran ay banaanka ay keentay ayaa lagu tilmaamaya 1.20 iyo waa markaas 1.230 bilyan iyo waliba sidoo kale heerka Petrka la yiraahdo 100.1 ugu yaraan halka dagaalka waa markaasi dagaalyahanada cusub oo ay markaasi diyaarinayaan 22.3 oo bilyan saynisyahano cusub oo markaasi diyaar ah ayaan in ka badan 22.3 bilyan lagu qasay heerkulka injineerada ugu cusub ee diyaaradaha markan soo baxaya ayaa iyagana lagu tilmaamay in ay gaarayaan 22.3 oo qof kuwaas oo ka shaqeyn doona gantaalada hadaba xiisada bariga dhexe mudooyinka ugu dambeeyay aad ay u xoogaysanaysa waxay warar kale ka soo koralkan kula wadaag doona si sheer gareem muuqaalka like tan meel dheeraan ka sanadin